qofka sooma waxaa u sugnaatay waxay tahay laba farxadood sida nabigeeni sala allahu calayhi wasalam uu inoo tilmaamay. midka ugu horeeya waxay tahay markuu afurayo timirta sambuuska burka dhammaan way taalaa halkan qofkan wuxuu ku farxayaa waxay tahay maadaama ilaah subxaanahu watacaala waafajiyey xilligaana ducada waa la ajiibaa walaalayaal ducaysu nacam gacanta ilaah subxaanahu watacaala u taaga weydiiso waxaa rabtid sidoo kale duco qurux badan ayaan kuu sidaa nabiga sala allahu calayhi wasalam agtiisa ka timid haddaad aqrisatid afurkaaga way kasii macaanaanaysaa way kasii qurux badnaanaysaa afurkii hore tijaabi insha allahu tacala aniga waa tijaabiye ducadaasoo ah ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أونكي وحدا وبابا أي أجر كان ويسقناتي محاك قوح دعاء إناد كدعيستين أن كدعان إن شاء الله تعالى قاسي أصحاب هذا كله أرجع عشاء إن سلوك له كدعيستان أين أم معانا توفقوا السلام عليكم.